وهاga halka ku sugan waa jaamacadda City Court ee magaalada Boosaaso ay saaka ka qabsantay munaasabad lagu soo dhaweeray sidoo kale ay ardaydu u fariisanayeen imtixaanka tijaabada waxa weey ama qaabilaadda jaamacadda waxay la taagay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda City Court soo dhawo basaaka maxay yahay aad baa u mahadsan tahay bahda miidiyaha iyo ugu horeeyaan dal jiraad baa u salaamaya aad baa u mahadsan tihiin ku soo dhawaada jaamacadda City Court runtii maanta maalin weyn bay inoo ahayd oo aan ku soo dhaweynaynay ardada cusub ee sanad jaamacadeedka 2025 2026 qoyga aqoonta iyo halabuurka ee jaamacadda City Court ardada halkan waxa lagu siinayay orientationkii ay u baahnaayeen oo indhafurka ahaa si ay ula qabsadaan nidaamka guud ee jaamacadda waxyaalaha looga baahan yahay ardayga jaamiciga ah iyo wax alaala wixii ku saabsan xogta iyo arrimaha jaamacadda inta uu ardaygu ku guda jiro ayaankiisa waxbarasho ee jaamacadda sidoo kale ardada maanta waxay marayeen imtixaanka aqbalaadda ah oo admission exam testiga ah waa maalintii koowaad insha Allah ta'ala wuxuu inoo socon doonaa dhowr casho oo ardada aan halkan ku siin doono orientation kaas marka waxaan rabnaa inaan maaragtay ardadu ay si dhow ula socdaan nidaamka guud ee jaamacadda si maanta ardaygu xogta uu helo iyo bixinta uu helo ay ugu fududaato inuu ula qabsado si dhow jaamacadda aad baa mahadsan waa ku soo dhaweynaya waxa jira dalka caqabada wax ka jira kala duwan baa ka jira dhaqaale xumo ka jira sida la sheego bal jaamacaddu ardayda si wada falgalaysa maadaama jaamacaddu waxa weeye loo baahay ardaygu markuu soo biirayo inuu waxa weeye dhaqaale ahaan inuu waxa weeye la falgalo bixi balse jaamacaddu fursad nooc ay siisaa marka koowaad horta si guud jaamacaddu waxay qayb ka tahay barnaamijyada bixiya adeegyada bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntland ay u baahan yihiin adeeg ugu muhiimsan oo jaamacaddu ay bixiso waa waxbarasho iyo cilmi baaris iyo la talin ay siiso da'yarta iyo dhammaan cidda u baahan ay ugu horeyso nidaamyada dawladda iyo maaragtay bulshada qaybaheeda kala duwan markaan u soo daadego runtii jaamacaddu waxay siisaa ardada aqoon iyo practical ku salaysan ama la jaan qaadaysa in ay u helaan ama ay ka faa'iideystaan fursadaha waddanka yaal sidoo kale inay noqdaan inay abuuri karaan fursado ay noloshooda ku bedeli karaan jaamacaddu sidoo kale waxay la raadisaa ardada scholarshipska iyo maaragtay si waxbarashadooda sare ay u sii wataan iyadoo xiriir la leh jaamacadaha dunida ku kala yaal sidoo kale jaamacaddu waxay samaysaa inay la raadiso iyadoo xiriir dhow la leh shirkadaha waddanka inay la raadiso ardada internship iyo fursado ay carbisa ay ku bartaan yacni ku soo bandhigaan xirfadihii halkan ay ka qaateen arrimahaas oo dhan waxaan uga dan leenahay oo dadaalada u sameeynaa in da'yarteena waxbaratay ay helaan fursado ay noloshooda wax uga bedeli karaan sidoo kale jaamacadda waa shaqaaleysiyaha ugu weyn ardada ka baxda jaamacadda oo runtii iyaga laftooda ardada ugu firfircoon ee jaamacaddu barnaamijyada kala duwan iyo activity-yada kala duwan ay qabato ay ku shaqaaleysiiso aad baa u mahadsantahay waxa jira badi waxa weeye ardayda waxa weeye ama dhalinyarada oo ugu badan dalka tahriibay iyagoo aqoon-yahanaha jaamacadda ka soo baxay bal jaamacaddu fursad ka duwan taas ma u haysaa si loo xakameeyo tahriibka aqoon-yahanka dalka ka baxay runtii anigu waxaan isleeyahay waxa keenaya ama maaragtay dadkii waxbartay ama dhalinyaradii waxbartay in waddanka tahriibaan waa afkaar runtii dhalinyarada qaybtooda ay faafinayaan oo ay ka shaqaynayaan afkaartaas waxaa lagaga hortagi karaa in yacni qofku si miyir qaba uu u fikiro oo uu comparison sameeyo nolol uusan garanayn wax ka horeeya waddo uusan garanayn meesha ay ku taalla iyo meesha uu marayo waxyaalaha laga doonayo oo waxa ugu badan uu bixinayo ugu muhiimsan ay naftiisa tahay waxyaalahaas oo dhan qofku markuu ku baraarugsan yahay runtii kuma dhiiranayo safar noocaas oo kale inuu galo annagu fikirkaa ka duwan baa ardada ku shubnaa oo ah ardaygu marka hore in la baro civic education waxa la yiraahdo oo maadooyinka haddeer ay wasaaraddu ay soo kordhisay oo foundation studieska ama foundation yearka inaan ardada ku barno waxyaalaha loo yaqaano critical thinking ama study skillska oo qayb ka mid ah maadada study skillska waxay ka fikiraysaa ardayga in laga dhiso wacyi ahaan loo dhiso oo ardayga waxyaalaha skillska u baahan yahay ee waxbarasho uu helo sidoo kalena uu noqdo arday fikri kara oo wax weydiin kara oo waxa hadda uu sameynayo wax uga imaanaya garan kara arday noocaas u dhisan marka oo aan isleeyahay jaamacad City Court buu ka baxay ismalihi arday noocaas uu ku dhiiranaya inuu tahriibo dhammaanna waxaan ku baraarujinayaa ardada waxbaratay wax allaale qofku waxa looga baahan yahay dadaal iyo dulqaad baa looga baahan yahay iyo samir baa looga baahan yahay runtii marka intaas hadduu qofku la yimaado in allaha maca saabiriin marka ilaahay subxaana wa tacaala qofku noloshuu ku guuleynaya marka anu intaasan ku dari lahaa mahadsantahay